No, 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 no. ويا بسميديا Master Keep Going X Sheekh Xuseen Barakaale waa mid ka mid ah kuwa loogu xiisaha badan yahay social media gaar ahaan dhalinta isticmaasha TikTok. Haddaba maxaad kala socotaa taariikhdiisa? Sheekhi sida dhaqsaha ah ayaa suuqa isugu bedelay. فضلا سبسكرايب صار Nin culus loo warsheeq. فضلا سبسكرايب صار أنا أعتقد جدود أفر فيديو كهاياكي هل مال إسكو صوت gurigeyga marka meel walba ka tagay aniga dhowcil ma dhowcil gurigeyga qoto ku bariisid jannada inoo ballama sheekh jaaw aniga warkaas waa ka diiday rob gabar single mother waxaan cafaan kale aniga single father ka dhaxa karfatidi garabka isaarada waa ka dhax baxa waxa arko wallahi intii uu hobay shaabada ku qaadaa wallahi billaah wax kale waa iska day wagac wala la waagi waa bari quful TikTok waa bar kulmisay macallin dugsi quraan qanaysiin fundiyaal fanaaniin rag iscadeeyay 60 jiriyo mustaqbalkoodii ka haray oo rag iyo dumarba leh dhammaantood ba wada neekinay iyo qaar ilaahay hanuuniyay oo bulshada ugu yeera wanaag سلام هدات جعشة جدك سقاط إلهي سبحانه وتعالى هدات ربطين وكوش علاده إلهي يدتك السقير مخلوقات كاسي ربي قد كحرين يعبدان balse maanta waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa taariikhda nin culus loo warsheeq oo xilligiisii hore la oran jiray Sheekh Xuseen Barakaale. Sheekh Xuseen Barakaale wuxuu ku dhashay degmada Warsheeq isla ayada ayuu ku soo barbaaray oo dugsi quraankiisii ku soo dhigtay. Waxa uu kamid ahaa dadka ay aad u saameysay dhibaatadii dhacday 1993 xilligii burburkii dowladda Siyaad Barre. فيديوغان هذا ujeedin waa xilligii qixi hay'ado duubay dadka ka danyarta ah ee dhibaatadu ka soo gaartay qaxitaanka ayaa fiidiyoogan ka duubay waqtigaas muddo dheer kadib dhibaatadii uu ka soo kabsaday Sheekh Xuseen waxa uu noqday nin sheekh ah oo caan ka ah degmada Warsheeq kaasoo dugsi quraan ku lahaay degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kale waxa uu ahaay xerow ka tirsan xer meesha ku dikrisa ama saba ku subcisa waqti kasta sida aad fiidiyowga ka arkaysiin waa kana isaga oo dhex fadhiya xertiisii oo waliba dikrinaysa Sheekh Xuseen asagoo oo khayrkiisa iska wata oo halkiisa iska jooga ayaa mar qura waxa balaaya tustay bartan loo yaqaano TikTok ee dhalinyaradu aad ku isticmaalaan wuxuuna isku dayay inuu duubo fiidiyowgiis ugu horeeyay waa midka uga bilaabo doona halaagii aan shaxumadii waana kana fiidiyowga ugu horeeyay ee uu soo duubay markii uu soo galayay bartan TikTok أنا خطر واحد دوب إذا تيك-توك أصلا كلا كفاية أقوم بليفيني كور ما هو خطوب أيام بيرجع هذا أسيا بنا No, 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 no. أنا عارف لا تيك-توك عم بيرجع كله كورسة كم توبيو بقبضة واسيدوب ياي كسر تيك-توك أصلا وينعط أيام لما في هذا بقتك هذا كو أرور ويسوع علاوي قشت كو أرور هذا كيف ده قرقورة بدل اللي ميري شقتنا markii uu fiidiyowga soo galiyay wuxuu rajeynayay dabcan in la waani doono ama dadku ay la yaabi doonaan balse dadkii ayaa warkii ugu soo koobay keep going horay u soco maadaama dadka bartan isticmaalaha ay 90% yihiin dad ciyaal suuq ah waa kan fiidiyow labaad soo duubay isagoo oo la yaaban dadku waxa ay leeyihiin oy wax kale
يا كل شيء والله بالله تلا والله كلا طول كده هروسع اللي كسوق رادي keep going إلهي ربي الرحمن وقوان وشرتر من نار تلقو ولا من جنة تلقو ولا مال لقو ولا ماشي keep going no. أنت اللي قول أسوي بقى أسترود هروسع لباح إلهي وكعب ستينه طبعا باللقوي ويزيني أنا كسبان maadaama uu arkay in dadkii hal qof u celinaya uu sugu jirin ama caayaya oo dadkii dhammaa ay usoo wada qorayaan keep going hore u soco ayuu waxa uu isku kalifay inuu bulshada usoo jeediyo waxay iska fiirsadaan ilaa wax la isku ceebinayo ma lahane wuxuuna bilaabay inuu soo bandhigo fiidiyowga uu kasii dhaqan xun yahay waa kan fiidiyoyaasha uu soo bandhigay Keep going. لباح روسع اللباح وإذا حاس اللباح منو قاون منو قاونته منو درلع منو درلع keep going هروسع يتلي اللباح أو رمى قضاء إذا رمى وقفته لباح ما شاء الله بحاله سوقرات ولبا إذا قاون أو أم بفحش كجرته وهو كجر والله sheekh xuseen barakaale hadda waa tiktoker caan ah maanta wuxuu soo geliyay 4 ilaa 5 fiidiyoo waan qofka ugu fiidiyoosha badan la tiktoka asagoo u arka markaas inuu horumar gaaray laakiin waxaan dhigi karnaa anagu uu ku halaagsamay halkan maadaama uu qeyrka ka soo carray oo u soo carray halkan ninkadu ka socoto tiktok waa aalad lagu yaqaano in qofka soo gala ama shiiq ha ahaado ama caamo ha ahaade oo shanbari ka bacdi ninkinayo maadaama waxa u soo baxaya kaliya ay yihiin heeso waxaa jiro dhalinyaro badan oo mustaqbalkoodii ku waayay oo igu daran yihiin dhalinyaro inta badan fiidiyo kusoo duuba wadanka Kenya oo qaxooti ku ah halkaas mustaqbalkoodii waxbarasho iyo koodii shaqo intaba ka haray u soo jeestay kaliya inay fiidiyo duubaan bal iska dhaaf heer gaari inay iscadeeyaan oo ay midabkoodii ilaahay siiyey oo umay iyagoo rag ah ay iska fiiqaan oo ay dumarkii make up ka marsaday ka sii laala badnaada markii fiidiyowga la duubayo waxaa jiro dhalinyaro kale oo social mediaha gaar ahaan tiktok isticmaasha oo ayagu u adeegsada dhinaca wanaaga dabcan wanaaga markaan leeyahay quraan iyo xadiis oo bandhigaan laakiin bulshada ayay waaniyaan waxaana kamid ah dadkaas dhalinyartan team school entertainment dabcan dhalinyaradan team school waa dhalinyaro waxbarta oo waxbarashadooda wata dhinaca kale bulshada isku daya in ay waaniyaan oo inay shaqeystaan ku waaniya oo ku dhiirigeliya soona bandhiga waxyaabo qiiro leh oo wadaninimo ku dheehanta waa kuwan fiidiyoyaasha ay soo bandhigaan oo aan aadka ugu helo aniga kuwa kamid ah sooraj isku jifa maana maya sidaamo adna isku degaan maana maya walaalkay maxaa isku naha marka walaalaanahay oo sideena Soomaalinimada nooban qalbigeena nadiif ah dabcan haddii aadan iska dhaafin bartan tiktoka waxaa fiican inaad u adeegsato dhinaca wanaaga oo aad dadka khayrka farto oo aad wacdiso sida gabdho aan barnaamijka bilowgiisa kugu soo bandhigay aad ka arkayseen oo kale sidoo kale haddii aadan cilmi u lahayn inaad dadka khayrka gaarsiiso oo aadan cilmiga baran xataa waxaad awoodaa inaad ku dhiirigeliso dadka waxyaabaha ay nolol maalmeedooda ku maareeyaan sida in ay shaqaystaan sida in ay mustaqbalkooda dhisaan oo wax bartaan sidaas inaad u adeegsato ayaa roon dad xataa cilmi aad dadka ku waanaysa aadan lahayn marka fadlan daawadayaal channel ku cusub tihiin subscribe karta calaamada gambeelka ana furta si ay idin dhaafin waxyaabaha xiisaha badan leh ee aan soo gelino channelkeena waa Yaabaysa Media 24 saac waxaad kala socon doontiin waxyaabaha idinka yaabiya markaan leeyahay ma aan wax xun soo bandhigayo kaliya waxa waaye in aan idin soo bandhigo waxyaabo aad hore u ogeyn wad maasantiin thank you